kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada war farxad leh ayaan rabaa inaan idinla wadaago markabka halkan ka muuqanaya waxaan u malaynayaa aad inaad ula socotay oo si weyn aad u daawatay xafladihii lagu soo dhaweeyay lagu qabtay magaalada Muqdisho waa markabka lagu magacaabo Uruk Reis ee ka soconaya dawladda Turkiga ay soo dirtay dekada weyn ee magaalada Muqdishona loogu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wafdi ka socday dalka Turkiga madax kala duwan oo dawladda federaalka ee Soomaaliya intaba ay goobjoog ka ahaayeen markabkan warkugu maseeganayn oo waxa uu sameynaya sahmin shidaal iyo waliba kheyraadka gunta badda Soomaaliya ku jira saddex meelood ayuu sahan ku sameynayay waxaan rabaa war farxad leh oo ka soo baxay baaritaankii oo inaan idin la wadaago isla markaana 24 saacba markabkan uu soo gudbinayay tan iyo markii baaritaanka uu bilaabay haddaba xadgee ayuu iminka ku sugan yahay howlgalka iyo baaritaanka uu wado maxaa lagu ogaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya warkii dedeelada leh oo ay bulshada Soomaaliyeed maalmaha soo socda ay la wadaagi doonto muxuu yahay intaas ayaan rabaa inaan kula wadaago waa barnaamijka Barrow Show si toos ah ayaad uga daawanaysaan YouTube channel-kayga iyo barahayga bulshada ee Facebook fadlan intaanan xogta kula wadaagin muuqaalkan marka hore la wadaag saaxiibada oo share gare meel fog gaarsii qaybta hoose ee commentigana aragtidaada faallada kadib sida ay kula muuqato inoo soo dhig aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada markale markabkan lagu magacaabo Uruk Reis markii uu magaalada Muqdisho soo gaaray oo munaasabadii soo dhaweynta ay dhamaatay waxa uu guda galay shaqadii u taalay dhowr kale oo markab ayaa la socotay oo qaarkoodna ay caawinayaan kuwa kalena amnigiisa ay ka shaqeynayaan oo ciidamada mariiniska dalka Turkiga ayaa ilaashanaya markabkaasi tan iyo markii uu howlgalka bilaabay 24 saacba mar ayuu wasaaradda kheyraadka iyo batroolka dawladda federaalka ee Soomaaliya uu u soo gudbiyaa xogta la helay iyo baaritaanada uu sameynayo saddex hab oo kala duwan ayaa la rabaa in markabkan howshiisu ay tahay oo la sameeyo waa marka koowaad bal horta sahmintii ugu dambeysay nooca loo yaqaan 3D-ga in la sameeyo haddaba baaritaanadii uu sameeyay markabkan ilaa iyo hadda inta laga warhayo waxaa la ogaaday Soomaaliya in shidaal badan uu ku jiro kheyraad badanna uu yaallo bulshada Soomaaliyeedna ay ka faa'iideysan doonaan baaritaankii hordhaca ahaa ee markabka iyo xogta uu bixinayaba warkaas ayay soo sheegayaan oo 24 saacba mar ayuu daatada uu aruuriyay waxa uu la soo wadaagaa wasaaradda la shaqeynayo macdanta iyo ama kheyraadka iyo shidaalka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya markabkan hadda meelaha warka farxadda leh uu ka imaanayo uu ku sugan yahay ama baaritaanada degdega uu ku sameynayo waa saddex meel laba meel waxa ay ka tirsan tahay oo ku taala Mareeg oo gobolka Galgaduud iyo waliba meel kale oo ka tirsan degmada Hobyo oo iyana baaritaanka lagu sameynayo guud ahaanba deegaanadaasi waa maamulka Galmudug sida xogta iyo macluumaadka uu barnaamijkan helay ay tilmaamayaan hadda markabkan oo aan kula hadlayo waxa uu ku sugan yahay biyaha Mareeg oo Galgaduud ka tirsan baaritaanka uu sameeyana waxa la ogaaday halkaasi in shidaal fara badan iyo kheyraad fara badan uu ceegaago isla markaana bulshada Soomaaliyeed maalmaha soo socda dawladdu ay la wadaagi doonto war farxadiisu ay aad u sareyso sida aan xogta aan ku helnaba ay tilmaamayso hadda labada meel uu baaritaanka ku sameynayo uu ku sugan yahay xogta waa Mareege waxa la leeyahay meesha dawladda federaalka ee Soomaaliya war fiican ayaa loo gudbiyay 24 saac markii ay dhamaatana xog ayuu la wadaagaa wasaaradda uu la shaqeynayo taasi waa mid koowaad haddaba xogtan saddex heer ay kala maraysaa sida aan helayno waa marka koowaad in baaritaan la sameeyo 3D isla markaana la ogaado halkan inay wax ku jiraan iyo in kale waa la ogaado meelaha qaar in waliba wax badan ay ku jiraan xogta labaad waxa ay tahay daatadii la aruuriyay in lagu sameeyo faalayn iyo analysis kadibna marka lagu sameeyo interpretation oo la fasiro daatada analysis-ka lagu sameeyo waxa ay tahay marka Mareeg durbaba waa la xaqiijiyay inay wax ku jiraan
oo daatadii la arooriyay ayaa lagu ogaaday kadibna waxaa la samayn doonaa analysiska in lagu sameeyo kadibna waxaa loo bixi doonaa interpretationka kadibna waxaa iman doonaa in bal halkaasi la duleeliyo oo la guda galo in la soo saaro khayraadka halkaasi ku jira ee ceegaaga haddii aad reer galgaduud tahay waliba reer mareegeed aad tahay caawa farxad weyn ayaad haysataa si guud bulshada Soomaaliyeed ayaa haysata laakiin si gaara deegaankaasi dadka ka soo jeeda farxadooda aad ayay u sareysaa oo waliba laba meel ayaa la leeyahay ayaa muhiimadda khayraadka ugu badan u yaala xogta sidoo kale laga helay hobyo waxa la leeyahay iyana aad ayay u sareysaa oo wax badan ayaa ka imaanaya xogta la helana waxay tilmaamaysaa qudheeda meeshaas wax badan inay ku jiraan haddii aad hore u ogeyd wadamo fara badan oo qaliijka ah iyo kuwo kale oo reer Yuruba oo shidaal fara badan haystay oo khayraad fara badan haystay hadda wargeysida qaar waliba wargeyska la yiraahdo Turkey Century waxa oo arintan ka xiganaya dhinaca Turkida marka laga yimaado in dhinaca Soomaalida iyo xogaha loo soo gudbiyay uu barnaamijkan helay markaan ka imaado dhinaca Turkida ayuu wargeyskan isagu wax ka xiganaya dhaqaalaha iyo militariga ayaa gaar ahaan difaaca ayuu ka faalloodaa sida la socota wargeyskan waxa uu leeyahay Soomaaliya dheeshii faqriga ayay tuuraysaa dhawaan halkan waxa yaala ayuu leeyahay wadankan ku yaala Horn of Africa ama al-Qarn al-Afriqi waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah dalalka hodanka ah ee hogaamin doona ama lead gareyn doona wadamada dunida saddexaad ka gudbay ee dunida horumartay tigsan doona marka haddii aad Soomaali tahay waxba ha ka walwalin wixii kugu dhacay wixii aad soo martay dhibaatooyinkii aad soo aragtay wadankaada khayraad fara badan ayaa yaala haddii fanaaniintu ay ku haysi jireen dhulkeena macdan ayaa fadhisa iyo dhulkaygu waa hodan iyo Soomaaliya ana iskale iyo maanta ayay ku tahay heesahaas iyo kuwa badan oo lamid inaad qaado laakiin marka laga yimaado farxadan iyo xogta durbaba la helay ee aan caawa kula wadaagaya oo ah mid scientifically la cadeeyay oo haddii hore waxa sheeko iyo maaweelo ay ahayd hadda scientifically cilmi ahaan ayaa loo cadeeyay meeshan inay wax badan ku jiraan laakiin si kala rabaa inaan wax ku tuso khayraadkii waa yaala laakiin muhiimadda waxay tahay khayraadkan in laga heshiiyo Soomaalidu inay noqdaan kuwa qawaaniintu ay hagaan oo amnigooda ka shaqeeya oo dawladnimada baritaara oo dawladuna aysan noqon kuwa awoodda shacabku ay siiyeen iska haysta in dawladnimada xataa bulshada loogu adeego in khayraadka halkan ka iman doona oo aysan gacmaha siyaasiyiinta iyo dadka dhaqaalaha haysta ee ganacsatada ah ee awoodda leh uusan ku dhicin xitaa bulshada kooda danyarka ah ee xarada barakaca ku jira inuu ka faa'iideysan karo si marka looga faa'iideysto waa in la helo qawaaniin hagta khayraadkan laga heshiiyo sidii loo qaybsan lahaa siyaasad ahaanna wadanka loo dejiyo laakiin iyadoo buuq iyo kala qaybsanaan iyo iyadoo farqaha la haysta in xaaladda la gaaro haddii ay timaado waxa la leeyahay sheekada waxay u ekaan karaysaa sida qubrada ay ku doodayaan barnaamijka uu la hadlay sida Nigeria iyo Chad iyo Cameroon ay noqdeen oo kale laakiin haddii laga heshiiyo dadka wax soo saarayna heshiisyada laga galay ay si sax loo dhigo waxa uu dalka noqon karaa shidaalka aramka ay soo saartay iyo shirkadaha kale ee qaliijka wax soo saaro oo kale in wadanka horumar fara badan uu gaaro haddaba haddii lagaaga sheekeyn jiray dhulka Soomaaliya nimca ayaa fadhisa khayraad fara badan ayaa yaala horumar fara badan ayaa la gaaraya hadda waxa la joogaa marxaladii isgoyska ahayd oo la xaqiijiyay scientifically ama cilmi ahaan Soomaaliya dhulkeeda khayraadkii ku jiray in la helay ay sax tahay waliba xaddigii la filaya xaddi ka badan ayaa la leeyahay meeshan mareeg waa uu ku jiraa waliba waa laba barood oo muhiimadeeda leh hobyana waa bar kale marka muhiimadda ugu weyn meesha taalo waxay tahay ma aqoon ahaan iyo garaad ahaanad u kobci karaan bulshada Soomaaliyeed ee wax u noqon karaan dawladooda Soomaaliyeedna ay ku biritaarayaan kulana xisaabtami karaan mise waxay noqon karaan kuwa caadifada iyo dareenka uu hago kadibna nimcadii nikhma isku bedesho ama nimcadii ay qudheeda dib laga helo halkan 10 ayaa ku jira wadamada Chad iyo Cameroon iyo Nigeria oo kale
ayay muhiim tahay siyaasiyiinta Soomaalida iyo dadka hoggaanka haya in ay fahmaan si kheyraadka halkan looga soo sheegayo loogu guuleysto. soo dhaw maxay kula tahay warkan cusub ee wanaagsan ee Soomaalida durbaba soo gaaray ee ku aadan saankii markabka Uruk Race uu sameeyaba durbaba in la ogaaday. aad baad u mahadsantihiin. soo dhawaada.